howlgalkan oo ahaa mid lagu sifeynayay jidgooyooyin ay dhigteen maleeshiyaad wadada isku xirta Cadale iyo Muqdisho. howlgalkan ayaa sameeyay gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe oo ay wehelinayaan taliyaha ciidamada booliska Hirshabelle, taliyaha ururka 12aad ee qaybta 12aad ee xoogga dalka Soomaaliya iyo waliba mas'uuliyiin ka tirsan dawladda iyo waliba kuwa Hirshabelle. howlgalkan ayaa imaanaya kadib cabasho ka timid dadka shacabka ah ee isticmaala wadooyinkaasi, taasi oo ahayd in lacaga baada looga qaado gaadiidleyda ku safarta wadooyinka mara degmooyinka Raagaceele, Warshiq iyo waliba Cadale. taliyaha ururka 12aad ee qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo waliba taliyaha ciidamada booliska Hirshabelle Xasan Dhixsuu Xasan ayaa ka hadlayna isbaaraleyda. waxaan ku jirnay waajibaadka guud oo la dagaalanka cadawga argagixisada ummadda Soomaaliyeed. haddana waxaan ku guda jirnaa mugta cadawgu waa fara badan yahay, halka ku dilaya oo dagaalka xabadda ku dilaya ummadda dhibaateeyay. waxaa la mid ah asaguna halka gudaha isbaarooyinka shacabka wadooyinka maraya ku dhibaatayha. sidaa daraadeed waxaan rabnaa maanta waa ilaa dhowr maalin waxaan ku guda jirnay shaqooyinkaas. waxaan tagnay Geelgub ilaa Xamar, meel kastoo waxyiileen agtaan soo marina waa qaadnay. halkaan u imaanay isbaaro inaan qaadno. waxaan ka soo bilownay Ceelcadda ilaa iyo hadda Ceelcadda ilaa iyo Geelgub waxa la wax isbaariyay waa qaadnay. hadda isbaarna waxaan u maleeyahay dawladda Soomaaliya waxay ka soo saartay go'aan sharci ka soo saartay macluumaad madaxweynaha Soomaaliya ka hadlay sida ogtiinba. waxaana lagu tilmaamay isbaar inay la mid tahay shabaab iyo isbaar inay isla mid yihiin. ninkii jid qaadacul dariiq jid taagan inuu la mid yahay shabaabka oo loola dagaalamayo sida loola diro shabaabka. waxaan leenahay marka dadka isbaaradaas ay u teelay in sida loo qaado ay ahaato. waxaan diyaarinay ciidamo isku dhafoo loogu talagalay inay wadooyinka ay ka shaqeeyaan, loogu talagalay isbaarada ay ka shaqeeyaan. ciidamadaas oo hadda ay qaar ay socdaan. waxaa kaloo jira iyagoo ciidamo kale toodoo noo imaan doona oo taliyaha xoog oo ban qaadiyo horin oo talagalay in isbaaro lagu nadiifiyo way jiri doontaa. Axmed Mayre Makaraan oo ah gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ahna duqa magaalada ayaa sheegay in aan la aqbali doonin in dhac iyo waliba baad laga qaado gaadiidleyda isticmaasha wadooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe. waxaana uu gaadiidleyda ugu baaqay in aysan bixinin lacagahaasi ayna soo sheegaan cid dhibaatayso. بعد سلام maanta waxaan maaragtay iyo maalmaha ku guda jirnay sidii horeba loo sheegay in wadooyinkan isbaarooyinka ka jira aan maaragtay wax ka qabanno oo u soo baxnay ilaa Xamar ilaa meeshaan aan u soconay waxay ahayd in isbaarooyinkaas laga qaado wadada. waxaan rabnaa muddo badan ayaa isbaarooyinka soo naqdeen inta la qaaday. waxaan rabnaa hadda kadib waxay gaartay madax ilaa majay gaartay. waxaan rabnaa madax dhigaalhow maqal waa qofkii maanta inta wax ku maqli weyso ama inta loo sheegaya maaragtay ay waxba u arag bari mas'uuliyad darada ka timaada iyada dusha saarayso. waxaan rabnaa isbaarada waa cudurka labaad oo markii shabaab laga yimaado cudurka labaad oo ummadda haysta waa waxa aan ka shaqeysay inuu cadow aan kala dagaali weynay ku ka taaxatay barkeen ninka asgariga ahayo la rabo inuu cadow iska dhacsho ama furuntii laga sugayo hadduu jiro meel ama ninkii maaragtay deegaanka ahayo la rabo inuu ummad gurigiisa iyo dantiisa qabsado hadduu jidkii ummadu rogo wax loo dul qaadan kara maahan, wax la fiirsan karana maahan. waxaan rabnaa hadduu ciidan yahay hadduu qof kale oo shacab yahay iyo nooc ka soo yahay jidka ninkii joogsada hadda kadib waa cadowga ummaddan. Maxamed Yaasiin Maadi Maxamed Qalfa, Universal TV, magaalada Jowhar.